degmada Woodward oo ka tirsan gobolka Cayn waxaa lagu qabtay munaasabad aad u ballaaran oo lagu caleemo saaray Caaqil Cali Yuusuf Aadan. Munaasabaddan oo ahayd mid maqaamkeedu sareeyo waxaa ka qayb galay isimo cuqaal marti sharaf iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada Woodward. Isimada gobolka Cayn ayaa munaasabaddan xafladda lagu casuumay. waxaa ugu horeyn madasha ka hadlay beeshii soo ciidamaday caaqilkan cusub oo ka warbixiyay muhiimadda caaqilkan ay ka leeyihiin. Chief Caaqil Cabdulaahi Maxamed Deego ka madax xubnaha golaha cuqaasha beesha ayaa halkan ka hadlay waxaana uu sheegay in caaqilka ay ku soo dhaweynayaan golaha cuqaasha beesha Guuleed Garaad. dhinaca kale waxaa hadalka lagu soo dhaweeyay Suldaan Cali Sheekh Axmed iyo Suldaan Siciid Ismaan Cali waxayna caaqilka ugu duceeyeen in Ilaahay xilka loo cimaamaday uu fududeeyo. annagu haddaanu nahay beesha halka laga magacaabay caaqilka keentay waanu dooranay horena caaqil ayuu u ahaayo xubin caaqilnimo ayuu noogu shaqayn jiray iminkana waxaanu u keenay oo aanu idin hor keenay in madal iyo markhaati aanu maanta u yeelo yaanu halkan u keenay sidaa daraaddeed annagu waa dooranay waxaanu rabnaa idinna waa nala doorateen oo waa aragnaaye inaad sidaa noola dooranaysaan oo sidaa noo ajiibaysaan baanu filaynay waxaanu kugu soo dhaweynaynaa golaha cuqaasha kugu soo dhaweynaynaa khaliifadada dal ku soo dhawow mid baan intaa ka dirfanayaa waxaan farayaa dulqaad adkaysi iyo deeqba inuu lahaado inta uu ka dhashay ee uu yahay caaqilka u noqonayana waxaan farayaa inay u dhaganuglaadaan oo xooreeyaan oo wuxuuna siiyo oo dadka siiyaan marka ugu faraxsanahay beesha Guuleed Garaad Cali Yuusuf Aadan jifidiisa inuu caaqil u noqdo sidaad raalli uga tihiin baan anaguna raalli uga nahay meelihii aanu ka nimin insha allahu tacaala maamuuskan wanaagsan waa gaarsiinaynaa waxaan idiin sheegayaa marka Soomaalidu qofka waa dooran taqaanaa maalinta ay doorato ayaana ugu dambaysa ma been baa soo arun Guuleed Garaad oo ilbaad fuulay Cali Yuusuf Aadan waa idiin fadhiyaa waxaa laydinka doonayaa kursiga aad ku fariiseen inaad ku maamustaan beesha maanta dooratay qani bay noqonaysaa haddii intooda waxaysato intuu xoolaha sakadaa ka qaado inta aan waxaysan siiyo beesha qof baahan lagu arki mayo maadaama la caleemo saaray bishiisa ee sanadkii cusbaa ee hijriyada ahaa intaasaan beeshana ka codsanaynaa inay caaqilka ku garab siiyaan dhaqankeena Soomaaliyeed ee suubana waxaa astaan u ahaa damal harweyn iyo guurti hoos fadhida oo garta korfaysa oo reerka u talisa ilaahay tanada hayno ilaahay waxaan ka baraynaa caaqil Cali Yuusuf Aadan waxaa u dooranay inuu fidiisa iyo caqligiisa iyo waxa aan ku baraynay inuu nagu hogaamiyo waddo toosan annagana ilaahay waxaan ka baraynaa kuwii adeeca u dhaganuglaada ee isgarab taaga inaan noqono caliyo awow calitaaniyo tiiran jabinahow awow taageero iyo alla tiirka kuu adkee awow ubad iyo allo deeqa duulku sii awow aaqibyada jannada iyo kaaga dhigay ammaan ku soo dhawow madasha qiimaha badan ee ka mid noqoshada cuqaasha beesha Guuleed Garaad ka mid noqoshada cuqaasha beelweynta dhulbahante waan idin salaamayaa soo dhawaada aad iyo aad ilaahay ha ka dhigo caaqilkii anfaca beesha Xirsi Cali beesha Guuleed Garaad beesha dhulbahante beesha Daarood beesha Soomaaliyeed caaqilkii anfaca Allah ka dhigo reerka cuqaal fara badan buu leeyahay wuu tarmadadu wuu batay ma sha Allah aad iyo aad buu batay aad iyo aad baa Ilaahay u xeeyay khilaafaadka ilaaliya midnimada ilaaliya haddii Ilaahay kugu rooyahay danaha reerka
yaan reer filiq ku dhicin midnimadeenna ka shaqeeya ninkaana waa caleema saaray waa ku tufnay dhawaynayaa nimanka reer axmed xuseen la yidhaahdo ee anigu aan ka dhashay ee manaasi arrinta tan guul badan iyo hawl badan u sameeyey ee gartay inaan oday dhaqameed u noqdo illinkii laga galayna aan noqdo iyagana mahad baan u naqay guuleed garaad ee igu soo dhowaysay uqaasha guuleed garaad inaan ka mid noqdo ee aqbalay ilaa jiif caaqil hadduu yahay iyo cid kastaba hadduu yahay igu soo dhowaysay ee igu soo agaasintay ee raallida ka noqotay ee soo garab taagtay iyagana mahad ilaahay baan u naqay